wariye Cabdullaahi Sheekh Doon oo ka tirsan TV-ga SBC ayaa maanta waxa uu gacan qaaday ciidamada booliiska degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir asigoo ku hoolanaa tabinta cudurka coronavirus. waxaan ka war helay anoo saxanay badka kaamirada oo isha ay saaran tahay kaamirada dharbaaxsho hal mar ay u dhacday aan ka war helay waa soo jeestay qof oo dhar askar aan wadan oo dumar ah ay dharbaaxday suxufiyiinta Soomaaliyeed magaciisa marka la soo gabo loo yaqaan SJS ayaa cambaariyay weerarkaas gacanta hadalka ah. marka ugu horeysa waxaan cambaaraynaa aadna uga xunnahay weerarka gacan qaadka ah ee saaka abaariga 11 ee barkii barqanimo taliyaha saldhigga booliiska degmada Xamar Jajab ay u geysatay wariye isla markaana cameraman ka tirsan telefishinka madaxa bannaan ee SBC fal kasta oo gacan qaad ah oo loo geysto qof bini aadam ah oo ay ku jiraan suxufiyiinta waa xaraam waxay ku reeban tahay dhammaan shuruucda caalamiga ah iyo dastuurka dalka qof kasta jirkiisa waa inuu ka badqabaa oo ka nabad galaa dhammaan xadgudubyada ay ku jiraan tacadiyada kala duwan ee ay ka mid tahay in toos qofka lagu gacan qaado. runtii aad uga xunnahay oo aan cambaaraynaynaa falka lagula kacay wariye maanta ka tirsan SBC oo runtii ah fal aad u culus marka la fiiriyo in wariye shaqadiisa haya oo waliba ka shaqaynaya wacyigelintii dawladdu ay waday ku saabsanaa cudurkan coronavirus isagoo shaqadiisii ku jira in taliye saldhig oo ah gabadhii taliyaha saldhigga ka ahayd degmada Xamar Jajab ay dharbaaxo ku dhufato waliba iyadoo aanan xirnayn dharkii ciidan ee lagu aqoonsan lahaa iyadoo markaas ku andacoonaysa in sawir laga qaaday iyo wax la mida runtii waa wax aad looga xumaado waxaanan cambaaraynaynaa falkaasi waxaanan u aragnaa inuu yahay mid ka dhana xuquuqda wariyaasha iyo xuquuqda aadanaha intuba waxayna dawladda Soomaaliya ka codsadeen in qofkii geystay falkaasi in gacanta lagu soo waxaan dalbanaynaa in sarkaalkii ka dambeeyay arrintaas iyo cid kastoo ku lug lahayd si degdeg ah baaritaan loogu sameeyo lana horkeeno sharciga aan ka codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta iyo taliyaasha saldhigga ama taliyaasha ciidamada ee ku shaqada leh arrinkan in ay baaris sax ku sameeyaan oo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ku sameeyo baaris sharcigana la horkeeno gabadha taliyaha ah ee ku xadgudubtay wariyahaasi. Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujuufa Dulqaad Media.